waxaa bilowday afmeerkii iyo waayihii burburka argagixisada ku sugan deegaanada Puntland gaar ahaan gobolka Mudug. Arartaydaasi waxay hordhac u tahay taariikhda markii ugu horeysay magaalada Gaalkacyo waxaa ka bilowday dhageysiga maxkamadaynta argagixisada Al-Shabaab gaar ahaan qaybahooda amniyaadka ee madax jabinta iyo kooxda ay ugu yeeraan istishaahidiyada ee qaraxyada kuwaas oo magaalada Gaalkacyo 13 sano la soo dhaafay ka geystay dilal qorshaysan iyo qaraxyo lagu bartilmaameeysanayay waxgaradka iyo haldoorka bulshada magaalada Gaalkacyo ee Puntland iyo Galmudug. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee gobolada Mudug iyo Cayn ee dawladda Puntland ee magaalada Gaalkacyo ayaa maanta u fariisatay dhageysiga dacwadda shabakadii ugu horeysay ee Al-Shabaab uga howlgasha waqooyiga magaalada Gaalkacyo. Shabakadan oo ka kooban 5 eedeysan oo ka mid ah amniyaadka argagixisada Al-Shabaab kuwaas oo dilal madax jabin oo soo bilowday horaantii sanadkii 2008 ka bilaabay magaalada Gaalkacyo sida uu ku soo oogay xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland. Gaashaan la sare Cabdullaahi Shire Maxamed gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee gobolada Mudug iyo Cayn ee Puntland ayaa dhageysiga dacwadda furay. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم دمان امه المسلمين تا meesha isugu timi wa salaam ya salaanta islaamka ku salaamay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maxkamaduna waa inoo furan tahay. Gaashaan Lacawil Warsame Maxamed xeer ilaaliyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee gobolada Mudug iyo Cayn ee Puntland ayaa doodiisa ku bilaabay sharaxaad guud oo ka bixiyay 5 eedeysan ee maxkamaddu maanta u fariisatay. waxaan maxkamadda ciidamada qalabka sida darajada koowaad iyo dambiyada culus gobolada Mudug iyo Cayn hor keenay maxaabiista 5 oo halka fadhida magacyadooduna ay sidaan kala yihiin magaca iyo tilmaamaha dhibanayaasha oo buuxa dawladda Puntland iyo shacabkeeda magaca iyo tilmaamaha eedeysanayaasha oo buuxa Faysal Ahmed Bashir magaciisa xarakiga Gujis ina maka Sheikh Sufi Sodoniyo Kowjir ah ku dhashay degan Gaalkacyo shaqada Farmaayo. Eedeysanaha labaad Sahal Abdullaahi Jaamac magaciisa xarakiga Cabdiraxmaan ina boosteeyo Maxamed Weheliye 32 jir ah ku dhashay laan madow degan Gaalkacyo shaqada dareewal. Eedeysanaha saddexaad Idris Maxamed Afyare ina Dahabo Maxamed Ibrahim 25 jir ku dhashay Muqdisho degan Gaalkacyo shaqada dukaanle Idris. Eedeysanaha afraad Salmaan محمود صليبان عبد القادر الفارس استاك إنا سونكوري آدن حسن لحيا لباتن جير كل شيء بيدبو دقن Gaalkacyo شقادة فورنر روتيلي إذا سنة شناد جامع مريد حسين محمد استاك ina Batuulo Ahmed Maxamed 20 jir ku dhashay Buulo Mareer degan Gaalkacyo shaqadu Bataajile. 5 eedeysane waxay ka mid yihiin ururka Al-Shabaab. Xeeraliye Gaashaan Lacawil ayaa sidoo kale maxkamadda ka hor akhriyay gungaarka eedeysanayaasha isaga oo mid walba dul istaagay dilalka iyo howlgallada kale ee uu qaybta ka ahaa kuwaas oo lagu dilay meedii shacabka magaalada Gaalkacyo. Faahfaahinta eedeysanaha koowaad Faysal Ahmed Bashir Ali Gujis ina mako Sheikh Sufi 31 jir ah eedeysanuhu wuxuu ku biiray ururka argagixisada Al-Shabaab 2008 tababarka wuxuu uga soo baxay ceelasha biyaha Xamar. waxay dileen isaga iyo kooxdiisu marxuum Muqtaar Jifo Jabsade oo lagu dilay Hotel Balansi gacanta koowaad waxaa lahaa Faysal Gujis halka uu dhammaystiray Sahal. waxay dileen isaga iyo
kooxdiisu marxuum qalay yuusuf jiile oo lagu dilay gurigiisa waxaa gacanta hore lahaa faysal gujis halka marin habaabinta uu lahaa sahal wuxuu dilay marxuum rooble awle cirfe rooble aagaan wuxuu ku dilay hotel juba wuxuu dilay marxuum cabdulqaadir jaamac nugaal ex xeer ilaaliyihii hore gobolka mudug wuxuuna ku dilay masjidka alcasiis wuxuu dilay marxuum yaasiin cali barre wuxuu ku dilay labada fooniye dhexdooda wuxuu dilay marxuum cabdulqaadir oo shaqaale ka ahaa hay-adda BDRC wuxuuna ku dilay farmashi alxaramayn gadaashiis wuxuu dilay nin magaciisa uusan sheegin wuxuuna ku dilay isbitaalka weyn dhabarkiisa qaybta TB-da waxaana halkaa ku dhintay sargaalkii madaxii nabad sugidda cabdikacaan baa halkaa lagu dilay wuxuu dilay marxuum maxamuud faray wuxuu ku dilay jiiro kuwait gurigiisa hortiisa waxay dileen marxuum bashiir cabdi garas ex xeer ilaaliyihii gobolka mudug wuxuuna ku dilay aagga maqaayadda aadan madoobe wuxuu dilay marxuum xasan weyne banle marxuum xasan weyne xasan cabdille hiraabay soomaali wuxuu ku dilay hotel alraxma wuxuu dilay marxuum muuse cartan wuxuuna ku dilay hotel online eedaysanaha labaad sahal cabdulaahi maxamed jaamac magaca xarakiga ah cabdiraxmaan ina boosteeyo maxamed 32 jir ah ku dhashay laanmadow degan gaalkacyo eedaysanuhu wuxuu ku biiray ururka al-shabaab sanadkii 2008kii wuxuuna tababarka ku qaatay caska gaalkacyo waxaa siiyey tababarka amiir jeeri wuxuuna ka qayb qaatay howlgallo oo kala ah qaar uu keligii dilay iyo qaar uu wax ka dilay dilkii koowaad wuxuu wax ka dilay marxuum cabdulaahi faray iyo walaalkii oo lagu dilay masjid gurigooda u dhow dilkii labaad wuxuu dilay marxuum ex guddoomiyihii xaafadda israac wuxuu ku dilay aagga jaamacadda caduun wuxuuna ku dilay cabdiraxmaan maxamed cabdille dilkii saddexaad wuxuu dilay wariye marxuum silfar ma sheegin goobtii uu ku dilay dilkii afraad wuxuu dilay marxuum ex cumar dheere madaxii ganacsatada gobolka mudug wuxuu wax ka dilay marxuum maxamuud faray wuxuuna ku dileen gurigiisa agtiisa eedaysanaha saddexaad idris maxamed afyare ina dahabo maxamed ibraahim 25 jir ah ku dhashay muqdisho degan gaalkacyo shaqadu ganacsi dukaan kasoo horjeedka hotel kalaansi ku yaala eedaysanuhu wuxuu ku biiray ururka al-shabaab sanadkii 2008 wuxuu u qaabilsanaa dilalka qorshaysan iyo wiidaynta qofka la dilayo wuxuu gacantiisa ku dilay 4 qofood oo kala ah wuxuu dilay marxuum maxamuud sheekh cismaan waxaa kaloo lagu dhaawacay halkaa wiilkiisa oo uu dhaawacay ibraahim siidow wuxuu wax ka dilay ex ganacsade xasan yare isagaana horeeyey soona masjidka jaamaca dhexdooda dilkii saddexaad wuxuu gacantiisa ku dilay marxuum ex cornayl axmed maxamed dhagaweyne dilkii afraad wuxuu dilay
ekis marxuum agaasime bashiir tabatabood wuxuuna ku dilay guriga ciiro agtiis. wuxuu waardiye ka ahaa marxuum cabdi yare maxamed maxamuud waxaana dilay ibraahim siidow oo ka baxsaday xabsiga dowladda. eedaysanaha afraad salmaan maxamuud saleebaan cabdulqaadir alfaaris ina sonkorey aadan xasan 26 jir ah ku dhashay baydhabo degan gaalkacyo shaqada foorno rootile wuxuu ku biiray ururka al-shabaab sanadkii 2009 wuxuuna tababarka ku soo qaatay deegaanka galgalato ee dhanka koonfurta wuxuuna soo bartay qaabka wax loo dilo wuxuuna dilay 6 qofood oo uu gacanta lahaa. dilkii koowaad wuxuu wax ka dilay marxuum injineer bashiir baafaan. dilkii labaad wuxuu wax ka dilay nabadoon marxuum xasan xuseen waxayna ku dileen masjidka macmuur asaga iyo nin kale oo gacanta dowladda soo galay hadda ka hor. dilkii saddexaad wuxuu wax ka dilay marxuum bashiir cabdi garas ekis xeer ilaaliyihii gobolka mudug waxaana la socday sahal iyo faysal gujis. eedaysanaha shanaad jaamac muriidi xuseen maxamed ina batuulo axmed 20 jir ah ku dhashay buulamareer degan gaalkacyo shaqada bataajile. eedaysanuhu wuxuu ururka argagixisada ku biiray sanadkii 2009 waxaana laga qoray buulamareer gaalkacyo wuxuu u soo bedeshay sanadkii 2016 wuxuuna u qaabilsanaa dilaalka qorshaysan. dilkii koowaad wuxuu gacantiisa ku dilay marxuum baabul kabiir ekis injineer qabri. dilkii labaad wuxuu kaloo wax ka dilay ekis wariye marxuum farxaan jeemis cabdille oo u shaqayn jiray raadiyow daljir wuxuuna ku dilay jiiro cabdulaahi yuusuf. dilkii saddexaad wuxuu kaloo waardiye ka ahaa dilkii ekis marxuum nabadoon maxamed jaamac dirshe waxaana lagu dilay yamayska. inta dhagaysiga kiiska uu socday waxaa maxkamadda laga horshiday qayb yar oo maqal muuqaal qiraal ku ah eedaysanayaasha iyo dhibaatadii ay ka geysteen magaalada gaalkacyo kuwaas oo horey looga duubay. dooda xeer ilaalinta oo dhammaystiran iyo waraysiyada eedaysanayaasha waxaa si buuxda ugu daawan doontaan taxanaha barnaamijka loogu wanqalay afmeer kaasoo ummadda Soomaaliyeed u bidhaamin doona arxan darrada argagixisada al-shabaab iyo dadka ay dhagarta ku laayeen. qareenada u doodaya eedaysanayaasha ayaa guddoonka maxkamadda ka codsaday in la siiyo waqti ay ku difaacaan 5 eedaysane ee qareenada u yihiin. gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee gobolada mudug iyo cayn ee dowladda Puntland gaashaanle sare Cabdullaahi Cabdi Shire oo ka ambaqaadaya codsiga qareenada kaasoo ahaa in la siiyo waqti ku filan ayaa sheegay in go'aanka maxkamadda dib la iskugu soo laaban doono muddo 24 saac. 24 saac waa hadda wax ka qoraysan hoolkii waa kan asaga wax ka qoraysan laakiin hal saac lagu dari waayo howlaha badan shaqooyinka badan 24 saac ay maxkamaddu u fashahay inaad ku soo dhamaysataan arrintii go'aanka saas u soo baxay maxkamaddu waa